xaaladda waddanku dee way aad bay u ballaarantay marka la yidhahdo xaaladda waddanka laakiintiise xaaladda waddanka hal tusaale oo keliya ta maanta haddii aad ka soo qaadato waddanka hoggaankii baa ka xumaaday xaaladda waddankeenu maanta wuxuu u daalaa dhacayaa waxa weeyaan hoggaan xumo oo run ahaantii bannaanka hadda usoo baxday intii hore hadalhayn iyo maxaan ku dhahdaa dee tuhun un bay ahayd laakiintiise hal yaroo tusaale oo keliyata madaxweynuhu maalin dhaweyto wuxuu la kulmay sariflayaasha oo kula kulmay gurigiisa inay ahayd baan filayaa haddaad dhegeysato waxa uu kala hadlayay iyo intaa uu la hadlayay waxaa kuu soo baxaya hoggaaminteena maanta halkay taalo iyo sida maxaan ku dhahdaa qorshe la-aanta barta bannaan la taagan yahay la iska socdo dowladnimona qorshe iyo han iyo himila lagu wadaa waxa uu madaxweynuhu yidhi isaga oo dadkii ku canaananaya dadkeenii waxaa ku dhacay wax la yidhaahdo cudur caafimaadka qof waloo xanuun yar ku dhacaa inuu tago maxaan ku dhahdaay India amaba meel dabadda u baxo waxay kuu muujinaysaa madaxweynuhu inaanu dareensanaynba ama ogeynba ama ogaanu sidan u leeyahay in dhakhtarka oo 200 tallaabo u jira ama 300 tallaabo oxygen la'aan loogu dhinto markuu isagu taa waxba ka qaban kari waayay markuu madaxweynihii uu maxaan ku dhahday dadkii qorshe caafimaad u sameyn kari waayay markuu cisbitaal u dhisi kari waayay isagoo le madaxtooyan ka dhisaya oo aynu aragnay tionay baahidi jirin in haddana dadkii masaakiinta ahaa ee patientka ahaa ee xanuunsanayay dhakhtarada tagay iyagii la canaanto oo la yidhaahdo maxaan ku dhahday lacagta ay dhakhtarada ku tagaan waxay inoo dhisi lahayd cisbitaal qofku lacagta jeebkiisa ku jirtay uu dhakhtar ku tagay oo caafimaadkiisa ku daweeya maaha wax qaranku uu tahay inuu dhakhtar ku dhisto waa waxa weeyaan qaranka budgetkiisa iyo dhaqaalaha waddanka soo galo maxaan ku dhahdaa la musuqmaasuqayo ayay tahay in looga sameeyo dadka caafimaad marka haddaanad wax kaleba eegin aad tusaalahaas oo keliya ta soo qaadato oo aad clipka yar oo keliya to 5 minida oo madaxweynaha aad dhageysato waxa kuu soo baxaysa maanta halkeenu inaynu kaga bannaan maxaan ku dhahdaa taaganahay oo aynu iska daalaan dhacayno oo madaxweynuhu aad moodaba inaanu mas'uuliyadahan isaga mas'uuliyadihiisa yahayn ee uu isagu dadkii canaananayo